dagaal culus ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii ciidamada taabacsan hogaamiyihii hore ee maamulkaasi Cabdicasiis Laftagareen ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda sida ay sheegayaan wararka hordhaca dagaalka ayaa si gaar ah wax ugu dhacay qeybaha kamid ah magaalada iyadoo ay labada dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan weerarka ayaa la sheegay inuu sababay khasaare isku jira dhimasho dhaawac inkastoo aan wali si rasmi ah loo shaacin tirada saxda ah ee khasaaraha goobjoogyaal ayaa sheegay in rasaas xooggan iyo sidoo kale qaraxyo laga maqlay goobaha lagu dagaalamay taasoo cabsi gelisay shacabka ku nool deegaanada u dhow halka ay isku hormaadida ka dhaceen dagaalkan ayaa xalay saqbarkii bilowday kadib markii weerar culus ay soo qaadeen ciidanka daacadda u ah Laftagareen kuwaasoo fariisimo ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baydhabo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyagoo sameeyay iska caawin aad u xooggan markii dambana dagaalka maleeshiyaadkii soo qaaday weerarka dib loogu celiyay halka ay ka yimaadeen dagaalkan ayaa yimid kadib markii iska hormaad kale oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed sidoo kale maleeshiyada hubaysan dagaalkii shalay ayaa saacado badan socday waxaana la sheegay in labada dhinac ay isku adeegsadeen hub culus iyo mid fudud iyagoo sababay dagaalkaasi shalay khasaare dhimasho dhaawac ah iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku dhigay qaar ka mid ah maleeshiyada u dagaalamayay ciidanka daacadda u ah hogaamiyihii hore maamulkaasi Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen dadka shacabka ayaa waxa ay muujinayaan cabsi aad xooggan iyadoona wararka ay sidoo kale ay sheegayaan in xiisada amni ee Baydhabo ay sii korortay maalmihii la soo dhaafay taasoo la xiriirta muranka siyaasadeed iyo loolanka awoodda ee ka dhex jira dhinacyada isku haya hogaankii hore ee maamulkaasi ee sida xoogaha looga saaray iyo sidoo kale kuwa haatan talada haya dadka deegaanka ayaa walaac ka muujiyay in dagaalada soo noqda ay saameyn ku yeeshaan nolosha shacabka iyo ganacsiga magaalada weli war rasmi ah kama soo saarin dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale kuwa maamulka Koonfur Galbeed kaasoo si rasmi ah u cadeynaya faahfaahinta khasaaraha iyo sababaha rasmiga ah dagaaladii shalay ilaa xalay ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo